hees waxaa jirta aad Soomaalidu ay u jeceshahay oo heesaha la jecel yahay kamida qisooyinna xambaarsan oo sheekooyin Soomaalidu isu sheegto run iyo dhalanteed waxay noqoto heesta Batalaale waxaa la wariyaa heestaasi inaad adoo da'yarta aad qaaday laxankeeduna uu ahaa laxan aad cajiib u ah markii heestu ay cusbaydna koox Sudanese intay dalka timid inay tiri heestan cidii la xamaysay baan u baahanahay ninkaan dhalinyarada kaasi waxay leedahay suurtagal ma ninkaan ma ahane ninkii heestan laxankeeda lahaa loo raadiyay wal Batalaale iyo qisooyinkeeda suukaanada Batalaale Allah u naxariistay waxa sameeyay Hargeysa nin joogay anigu markaa xamal baan joogay Hargeysa la bedelay marka ninka waxa la oran jiray Cabdi Cali White halkaas aan ku kulanay isku baranay markaasuu Allah u naxariistay wuxuu yiri yahow heesahan bal hayaa bal wax oday oo heesii wax qaad marka heesaasan ka qoray oo qaaday heesihiisa kamid ahayd dhowr hees kalena waan ka qoray waan qaadaa Allah u naxariisto marka anaga waxa xoogaa lagu ahaa wax dib badan codka sameyntiisu wuxuu ahaan jiray wax maanta aad la galgalato caawa aad dib u dhigaysato bari aad la galgalato laga yaabo inuu ka qaato hal sano laga yaabo inuu ka qaato maalin marka mid ku noqdaba heestan si saalan baa codkeeda Ilaahay igu saalay oo uu sameeyay waa run qoladaas soo tahay aad iyo aad bay uga helaan laakiin waxay yiraahdeen anigu Axmed Haantayda ma maqlayn magaranaysa oo anigu heestii baan qaaday markii fanaaniinta weydiinayeen fanaaniinta Suudaantu markay fanaaniinta Soomaalida weydiinayeen way ahayn heestan ninkan uu qaaday yaa sameeyay anigu markaa dad duuni baan hortaagnaa oo su'aasha iyo meesha la isku weydiinayay iyo meesha looga jawaabayay ma joogin ma fahmin maxaad maqashay sida aad u sheegayso baan maqlay Suudaantii fanaaniinta Suudaanta weydiiyay codka yaa sameeyay ninka qaadaya waxay yiraahdeen macquul maaha ninka waan yare codkan waa cod magaranaysa waa wax laga yaabiye run loo sheegay yaa sameeyay codka yana waxay yiraahdeen ninka qaadaya la sameeyay dabadeedna waa la casumay anigana waa la sheegay waxa la yiri nimankaas doonayay inay gaar ku bartaan waa la casumay waa la suuqay keenay waxay ugu tijaabiyeen ereyo kale inaan markii cod sameeyo anagoo wada fadhina si fiican magaranaysa marka codkii waan sameeyay markaas ay ogolaadeen oo ay rumaysteen inaan sameeyo codka marka ereyadaas carabi bay dabcan ahaayeen mise ereyo Soomaali ah Soomaali bay ahaayeen waayahay